wafdi uu hogaaminayay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan oo magaalo xeebeedka Izmir ee dalka Turkiga uga qayb galay shirweynaha bandhigga ganacsiga 88aad oo ay martigeliso magaalada Izmir ayaa kulan gaar ah la yeeshay wasiirka ganacsiga ee dalka Turkiga Rosan Bekcan. sidoo kale wafdiga wasiirka oo ay qayb ka ahaayeen safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga iyo mas'uuliyiin ka socday rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa waxay kulamo gaar ah la yeesheen madaxda hay'adda DEEK oo Turkiga u qaabilsan horumarinta dhaqaalaha dibadda. waxaana ka warbixiyay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid. kasoo carwada aanu ka soo qayb galay dawlad ahaan uga soo qayb galay waxaanu maanta si gaar ah ula shirnay oo shir gaar ah la galay oo laba geesood ah wasiirada ganacsiga ee Turkiga oo aanu ka wada hadalay wafdigii wasiirka ay ka wada hadleen xiriirka labada wadan ee dhinaca dhaqaalaha heshiisyo dhex yaalay hore loo galay ilaa 2016 la galayay oo tobaneeyo ka badan oo sidii loo hirgelin lahaa laga hadlay heshiisyo hadda qabyo ah oo gorgortan ku jira oo ugu weyn yahay heshiiska TEBA oo ah Trade Economic Partnership Agreement oo saamaxaya hadii lagu guuleysto hadii la saxeexo oo la approve gareeyo baarlamaanadu ansixiyaan waxay sahlaysaa in waxyaalaha Soomaaliya laga soo dhoofinayo Turkiga si cashuur la'aan ah ama cashuur aad u yar ay ku timaado. runtii Turkiga suuq aad u weyn oo wax soo saarka Soomaaliya u baahan sida wax soo saarka beeraha iyo kalluunka oo inaguna aynu muhiim inoo ah inaynu maanta ka faa'iideysano. kadib waxaanu la kulanay wafdigii wasiirku waxay la kulmeen madaxa hay'adda DEEK oo Turkiga u qaabilsan horumarinta dhaqaalaha dibadda oo wasaaradana si toos ah ula shaqeeyo wasaaradooda dhaqaalaha ama ganacsiga. iyagana waxaan ka wada hadalnay heshiisyo hore iyaga iyo Chamber of Commerce ama rugta ganacsiga Soomaaliya ay wada galeen sidii loo hirgelin lahaa sidii carwooyin loo wada qaban lahaa sidii laftigooda heshiisyada hore ee labada wadan galeen ay u dardargelin lahaayeen si ganacsatadooda aan u bari lahayn dalka Soomaaliya si ay u maalgashadaan. guud ahaan waxaan ku qiimeyn karaa safarkii wasiirku ku yimi Izmir inuu ahaa safar guul ah oo albaab badan furay oo ganacsato badan oo Turkiga aanu aragnay wadamo badan oo kale oo carwadan ka soo qayb galay oo Asia sida China, Hindiya, kuwa badan oo Europe ka yimi kuwa badan oo Afrikaan ah aanu meesha isku baranay ku wada sheekaysanay hoteelka wada deganeen macradka carwada ka wada qayb galanay taasina faa'iido kale oo dhinac socotay bay ahayd. wafdiga wasiirka ganacsiga ee ka qayb galay shirweynaha bandhigga ganacsiga 88aad ee Izmir oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga ee dalka Turkiga ayaa horey kulamo ula yeeshay rugta ganacsiga ee magaalada Izmir iyo mas'uuliyiin kala duwan. Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruush magaalada Izmir.